dadka cidlada iyo kelinimada soo arkay ayaa ugu naxariis badan, dadka murugo soo maray ayaa ugu dhoola caddayn badan, dadka jab badan soo gaaray ayaa bixiya jacayl badan. dhammaan sidaasi waxay u samaynayaan ma doonayaan inay arkaan qof u dhibaatoonaya sidoodii ay ka soo gudbeen. imtixaan kastoo nolosha ah wuxuu ku tusaa walwal ama rajo wanaagsan. dhib kastoo ku soo marana wuxuu kaa dhigaa qof jaba ama qof sii jira oo adag. si kastaba qadarta ilaah waa mid mar walba jirta, doorashaduse waa dhankaada. haddii aad noqon lahayd qof guulwada ah ama guuldarayste ah, ha raadinin qof weji qurxoon leh, balse waxaad raadisaa qof qalbi wanaagsan leh. maxaa yeelay wax walboo kula qurxan ma wanaagsana, balse wax walboo kula wanaagsan way qurxoon yihiin. goortii aad meel sare joogto, saaxiibbadaadu way garanayaan qofka aad tahay. goortii aad soo dhacdase, adigaa garanaya saaxiibbadaada dadka ay yihiin. 3 xal ayay leedahay dhibaato kasta: u sabir, wax ka qabo, isaga tag. haddii aadan u sabri karin, wax ka qabo. haddii aadan wax ka qaban karinna, isaga tag oo faraha ka qaad. ha ka dhigan farxaddaada inay ku xihan tahay wax wakhti kooban ah ama waxaad waayi doonto. alla raaligelintiisa ka raadsa farxad, sababtoo ah isaga keliya ayaa baaqi ahaanaya. imtixaanaadka qaarkii way soo noqnoqdaan ilaa aad cashir ku qaadato, ilaa aad garato sababtay ku dhacayaan, kadibna aad isbeddel samaysid kuna dadaashay inaad horay u gudubto. shakhsiyadda xoogga leh micnaheeda ma aha inaad ku hadaaqda hadal liita ama afxumo ah, ee xoogga waa xigmad ee ma aha afxumo. ha u murugoonin waran dilaa ah oo kaaga yimid qof qalbigaada u dhow, sababtoo ah waad heli doontaa qofkaasiiba waranka kuna siiya jacayl. waxay i bartay ballanta inaan shumacayga ifiyo ilaa uu habeenka ka dhammaado, si aan u raadiyo warqadahayga oo aan ugu diiwaangeliyo gabayadayda iyo kelmadahayga, una habeeyo, yacni una kala saaro farqiga u dhexeeya ballanta iyo ammaanada.